السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلة إيوه تحانهيني آذان كعبة. تحانهن آذان كعبة أيا وحان قاعدة ديجي دونا هدو الله أود له إدمو طبعاً كعقبضات إيقوة وين إيسو واجهة قفك بني آدم كا نولوشيسا. waxaan guda geli doonaa qodobka labaad waa baahida ah in si degdeg ah uga dheregno waxa aan rabno annaga dhaqan ahaan waxa caado inoo ah inaan goor walba filano natiijo degdeg ah gaar ahaan waxyaabaha aan qabsanayno hawl walba ama shaqo walba oo la qabanayo waxaan rabnaa inaan ka helno natiijo degdeg ah midaana waxa ay ka mid tahay tobanka caqabadood ee ugu waaweyn ee qofka soo waajihi kara si uu guul uga gaaro noloshiisa degdega waxa badan khasaarihiisa waxa badan dibdhiciisa waxaana badan qoomamadiisa waayo degdegsiinyo haddii ay doori dhali lahayd kaadsiinyana kiish lacag ayay dhali lahayd tiknoolajiyadda sida degdega ay u soo saarto qofka farihiisa sidaasi si la mid ah ayaan waxaan baahi weyn aan u qabnaa isla awoodii oo kale si aan ugu isticmaalno dhanka kale ee nolosheena isbeddelka kuma yimaado si degdeg ah ee isku day inaad barta madow ka soo bilowdo si aad u gaarto barta cad ha yeeshee ha ilaawin inay jirto bar u dhaxaysa madowga iyo caddaankana markay isku darsamaan ayaa meesha waxaa imaanaya midabka gareyga ah taasi oo ay waajib tahay inaad soo marto u shaqee si aad u gaarto isbeddel aayar ku yimaada halkii aad diiradda saari lahayd isbeddel degdeg ah oo gun hoose leh waayo isbeddelku waxa uu ku yimaadaa si aayar ah waxaana lagaa rabaa inaad tallaabada u qaado sidii dhallaan socod barad ah dhib ma laha sida ay fikradaha u xoog badan yihiin haddii aadan u isticmaalin awooddaada isbeddel togan dhab ahaantii waxaad noqonaysaa qayb ka mid ah mushkiladda dhammaan waxaan ka baqnaa isbeddelka imaanaya waxaana doonaynaa inaan ka fogaano ha yeeshee goor walba maaha awood in halkaaga aad joogtid ama aad taagnaatid sidoo kale awoodda ayaa waxay tahay inaad qaadan kartid go'aan aad ku beddeli karto halka aad u socoto waa inaan u doonaa isbeddelkaasi dhaba waayo waxaa muhiim ah inaan xusuusnaano inaan ogaano in codkeena uu yahay hadiyad qaali ah waana inaan isticmaalnaa mararka qaar waxaa qasab ah inaan beddelno jihada aan wax u wadno marka haddii aynan beddelin jihada waxaa dhici karta inaan ku dhammaano halka aan ku wajahannahay sidaa darteed waxaa muhiim ah inaan maanka ku hayno sida uu sheegay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama isbeddelka inuusan imaanaynin haddii aad ka sugto qof ama aan sugno waqti kale waa annaga dadka laga sugayo isbeddelka waana annaga isbeddelka aan raadinayno ha sugin qof kale inuu kuu keeno isbeddel hana sugin inaad hesho waqti kale si isbeddel loo helo hana sugin natiijo degdeg ah si isbeddel loo sameeyo hana sugin in wax walba ay u dhacaan sida adigu aad doonto waayo isbeddelku waxa uu yimaadaa si aayar ah waxaana hadalkayga ku soo koobaya hadalkii George Bernard Shaw ee ahaa horumar ma suuragelayo isbeddel la'aan kuwa aan awoodin in ay beddelaan maankooda waxba ma beddeli karaan haddaba si taxanahan aadana kaab aad u hesho ku xirno channelkeena Somwood adiga oo subscribe noo saaraya halka hoosena noogu reeb wixii comments ah annagana noogu suuro gasho inaan horumarino waxyaabaha aan idiin soo bandhigayno idinkana ha isku koobina macluumaadkan muhiimka ah ee la wadaaga asxaabtiina idinka oo share dhahaya waa Maxamed Cali Juxa oo idinkaga tagaya salaamullaahi calaykum.